waxaa habeenkii sideedaad xabsiga xamar ku hoyanaya boqorkii baraankeeda Liibaan Maxamed oo loo goran og yahay Baaquli Boy taliska ciidanka nabad sugidda Soomaaliya oo sida la xaqiijiyay xere wiilkan waxay ku eedeeyeen inuu ku lug leeyahay siyaasadaha diidan ee dalka wararka qaar waxay sheegayaan askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ay wiilkan weydiisteen lacag baad laakiin uu ka dhaga fureystay sida daraadeedna dambi uu salahayn dusha looga tuuray marka laga yimaado tuhunka lagu soo xiray Baaquli Boy ma jiraan cadeymo buuxa ay soo bandhigeen booliska Soomaaliya oo baaritaano adag ku haya kiiska wiilkan loo haysto gabadha dhirka aday kula egtahay marka waxa rabaa inaan ku jimeeyo aagashitida raba saaxiibo iga gashan oo ku baryaa hal mar gashan oo saaxiibo noo Liibaan waxa uu ahaa wiil kamid ah dhalinyarada YouTuberska ee Muqdisho ka xamaasha wuxuuna ka tirsanaa team la magac baxay Baaquli Boy kuwa oo soo bandhigi jiray muuqaalada kaamirada qarsoon iyagoo ka qosliya kuna maaweeliyay dadka ku xiran barta ay ka degan yihiin YouTube-ka team Baaquli Boy hadda muddo 7 laga joogo channel-kooda muuqaaladii looga bartamaysan soo galin sabab la xiriira saaxiibkood oo xabsiga xamar leenta ku cabaya caasimada Soomaaliya oo hadda cagta saartay wadadii guusha waxa jooga dhalinyaro ku dhiiran waayay inay ka dhaqaaqaan caasimadooda ay ceyr u doontaan qaaradda Yurub iyagoo safarkii saxaraha Liibiya ka doorbiday inay u dul qaataan marxaladii adkeed ee wadanku soo maray 20kii sano ee ugu dambeysay taasina waxay keentay in Muqdisho ay mar kale dib ugu soo laabtaan kuwii farakutiriska ah ee ka farxaday caasimada kadib markii ay ka ahaan waayeen bilicda magaalada Muqdisho marmarka ka dambaysa soo bidhaamaysa taas oo ay soo bandhigayeen dhalinyaradii u dhabar adeegtay dawladda waqtigeedu sii dhamaanayo oo lagu daray ayaa wasiirka dhalinyarada xilligan waxa lagu xantaa inay kaliya qalabeeyaan oo qoryo u dhiibaan qaar ka mid ah dhalinyarada laakiin si ay soo qorshe kale u haynin sanadii u dambeeyay waxa soo badanaya dhalinyarada YouTuberska kuwa la jaan qaaday tiknoolajiyada casriga ee adduunka ku tilaabsanaya waliba ayagoo ka soo kabsanaya shaqo la'aanta ka jirta dalka laakiin nasiib darro waxa dhanka kale barbar socday xariga iyo xadgudubka lagu hayo dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa ku guda jira nolol maalmeedkooda maahan markii ugu horeysay oo YouTubers caynkan oo kala xabsiga la dhiga dhawaan ay ahayd markii magaalada Hargeysa lagu xiray qaaliseego ah wiil YouTubers oo gudaha Soomaaliland ku soo bandhigi jiray muuqaalada loo yaqaan public prank wixii warar hadaba ku soo kordha xaaladda Baaquli Boy halkan aad kugu soo gudbin doona bahdi qarsoon media isku duuban oo idin balanteen uga subscribe leeyahay page-keena FB shartada waa inoo muhiim ka wanta warkeeda nabadey saaxiibayaal